يقع السوق بنصنع عليه وياخذ عبد الرحمن راديو فيصل نقول ما هيركز وقرسي هيركز وقرسي سمعت هيركز عندي حق لا اله الا الله باشا صح ولا كده صح
ما ديار هذه gacmaha hoos u dhig hoos u dhig gacmaha hoos u dhig labada diyaar ma tiis afeer bilaawa diyaar ma tiis diyaar ma tiina bilaa anaga la wajiga maxaa duulay qofkii diyaar ma tiis بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد امين وهرينت وحن ليها إلهي سبحانه وتعالى وحن ليها إنا لله وإنا إليه راجعون ضدك شعبك صوماليات وما أنت كجارتي دجمدا وذجر قرح إلا بيكسدين كوحدة برعدينيت كشباب كله يقانو وأوجدين دجمدي إن بربرتي وقتها لا أذيجناي أما شعب كأو أذيجناين دجمدا كأذيجناين أما برنامجه ذي كفلناين أي كان جايين شباب عدوجا ومضى الصوماليات مركي وايين فرصة كوايين دتك كلا شعب كأها ما إله يكون ورايين إن بيكسدان ماشي مجتمع لو أذيجاي أما دجمدا وذجير لو أذيجاي إن بيكسدان وأوجدين قصارت الجيستين أما مارتاي سير ربين ونقوم ويس عدوه إن شاء الله تعالى وحن ليه ومضى الصوماليات ما أنت شباب بوحوا بيكسنا يو دولة معها ونكوع علنا يا مرة والبط دولة معها مدحوينا معها رئيس وزارة معها وزيرنا معها تليع إذا معها وحوا بيكسنا يا شباب جريتانك شعبك الصومالي وكنا القبل كبنادر وإن ساس لو فهموا شعبك إنه فهمان إنه يهي عدو جود كوات شباب عدو جود بعض الشباب عدو جود سدعان الشباب إنه يهي ساسين أقدر يما ولا مارمان dadkii meeshaas ku dhintay waxaan u tacsiyeynaya anoo ku hadlaayo wasaaradda amniga dawladda federaalka Soomaaliya waxaan leeyahay samir iimaan dadkii ehelka ay ka tageen samir Allah naga siiyo kuwii ku dhaawacmayna gacan ka xaqdarno dhaalimada dishay ama wax gaarsiisay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ku rajaynaynaa ilaahay inuu caafiyo waxa lagu jiraa 10kii dambe Ramadaan oo khayrka iyo wanaaga badnaa kuwii ku dhintay waxaan rajaynaynaa inay yihiin shuhado oo shahiid ah niman khawaarij oo mufsidiin oo arrada ilaahay fasaadinayo ayaa dishay insha Allah ta'ala waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed aan ku baraarugno markay waayeen shabaab meelaha inaga soo galaan aan xirnay oo ciidankeena uu taagan yahay in degmadii shacabka loogu adeegayo oo aan la xiri karin inay soo beegsadeen ku beegsadeen shacabka Soomaaliyeed mar meel walba ay ka waayeen shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed gobolka Banaadir degan u diyaar garoowa shabaab saas kaga cilin lahaydeen shabaab maanta uma jeedo dawlad kali wuxuu u jeedaa shacabka Soomaaliyeed jiritaankeeda iyo nolosheeda inay baabiyaan u diyaar garowno oo qoriga aan u qaadano oo tuutaha u xiranno oo shabaab meel walba uu joogo aan beegsanno cadowgaas manaxariistaha horarka ah ummadda Soomaaliyeed inuu baabiyo maalin walba ku faraxsan waana arki doontiin miidiyooga Andalus waxay ku soo sheegi doonaan in dad badan oo murtadiin ay dileen ay sheegan doonaan cali dheera sheegan doono midka uu muscab ay dhaana sheegan doono waa in wax muuqdo waa in ku faani doonaan shacabka Soomaaliyeed dhiigooda inay daadiyaan waxay ku faani doonaan shabaab annagana waxaan leenahay waxaan diyaar u nahay shacabka inaan difaacano shacabka inaan badbaadino shacabka waxa dhaawacooda qaaday arkaysan waa ciidanka booliska iyo ciidanka nabad sugidda dawladda federaalka Soomaaliya waa u jeedin wariyaasha daatiin insha Allah ta'ala waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed aan u buraarugno cadowgaas sidaan iskaga celin lahayn aan u buraarugno waxa waaye dhowr 10 ruux oo shacab ah dhimatay 9 ruuxna shacab way dhaawacantay hadda intee saraakiisha iyo ogeysiisay insha Allah ta'ala wixii ka soo cusboonaadana gadaalaan ka soo sheegi doona hadii Ilaahay raali ka noqdo dadkii halkaan ay ku dhaawacmeen oo ku jiray gudoomiyaha degmada wada jir arintaas dhaawac weyn ma gaarin wariye ninka la gudoomiyaha degmada dhaawac weyn ma gaarin qofka meel uu ku jiro waa dareemi kartaa wax gaari karo gudoomiyaha degmada dhaawac weyn oo hadda la sheego media ka sheegno ma gaarin insha Allah ta'ala asagana soo sheegi doono media soo hortaagi doono Ilaahay raali ka noqdo xirteen dacdayaasha islaamiga loo ilaaliyo amaankiisa baabuurta hal meel ay soo keenteen qaraxyada way dhacayaan maxaa isbedel qaraxyada ma dhacayaan cadowga waa laflacaari cadowga waan baabiin doonaa waa u jeedin shalay u dambeysay waxaan qabanay horjoogihii amniyaadka ahaa oo shabaabka gobolka Banaadir u xilsaarnaa waa ka amniga ay qabteen qof walba shabaabna saas loo qaban doonaa gobolka Banaadir waa laga safeyn doonaa Ilaahay raali ka noqdo qaraxa waa baabuur oo lala beegsaday degmada oo lagu dhuftay